wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka SBTV qodobada wararka habeenimo oo ugu door koron ayaa waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo diyaar garoobeysa dagaal ka dhan ah xarakada Al-Shabaab dagaalada u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Baay Ilhaan Cumar oo wax lagu xumaado ku tilmaantay dilkii loo geystay ninkii madowga ahaa ee u geysteen ciidamada booliiska wadankaasi Mareykanka qaar kamid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho oo ka hadlay qaabkii Muqdisho metelada ugu helileed golaha sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garoowa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo xarakada Al-Shabaab ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalada Diinsoor ee gobolka Baay dagaalkan ayaa waxa soo qaaday qaar kamid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab iyadoo halkaas loogu dilay ilaa iyo 2 ruux qaar kamid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho kulan xalay ay ku yeesheen magaaladaasi ayaa looga hadlayay matalaada gobolka Banaadir uu ku yeelan karo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya warbixintan waxa inoo faahfaahinaya wariyahina Ali Ibrahim Maxamed xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee ka soo jeeda beelaha Hawiye ayaa xalay kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulankan oo ka dhacay hoteelka Dorbini ayaa looga hadlay sida gobolka Banaadir matalaad ugu yeelan lahaa aqalka sare ee xilli iminkan la sugayo go'aan la gaaro qaabka doorashooyinka dalka ka dhacaya uu gobolka lug uga yeelan karo guddi isku dhaf ah oo ka kooban xildhibaano ka tirsan labada aqal ayaa dhameystiray sharciga doorashooyinka dalka ayagoo go'aan ka gaaray arrimaha ay ka mid yihiin waxa laga yeelayo gobolka Banaadir iyo arrinta Somaliland shirkii xalay ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish iyo wasiirka ganacsiga wasaaradda amniga dawlad goboleedka Galmudug ayaa sheegtay in ay la dagaalami doonaan dadka siiya lacagaha argagixisada ka dagaalanta gobolada dalka warbixintan waxa ay noo faahfaahinaysaa Ikraan Jama Maxamuud wasiirka amniga gudaha ee maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay inay si adag ula macaamili doonaan shakhsiyaadka lacagaha baada ah iyo kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururweynaha Al-Qaacida wasiirka ayaa sheegay inay wadaan shaqada iyo sharciga la dagaalanka argagixisada uu sheegay inay dhawaan la soo saari doono laguna cadeyn doono xukunka xubnaha Al-Shabaab ka tirsan iyo kuwa xiriirka la leh iyo kuwa lacagaha siiya mar uu ka hadlayay shakhsiyaadka lacagta siiyo Al-Shabaab ayuu sheegay inay ka mid yihiin qaar ka tirsan shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya inkastoo uu ka gaabsaday inuu sheego magacyada shirkadahaasi wasiir Fiqi ayaa si adag u sheegay inay dadka lacagaha siiya Al-Shabaab ay u aqoonsan doonaan inay ka tirsan yihiin kooxda maadaama uu sheegay inay garab ku siiyaan gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay wasiirka oo wax laga weydiiyay sida ay ka leeyihiin goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin deegaanada maamulka Galmudug ayaa sheegay inay haysashadaasi ay tahay mid xaaraan ah isla markaana ay waqti dhow ka saari doonaan sidoo dalka uu gali doono hadii alla idmo jawi doorasho ayaa waxa la isku wadaa qaabab kala duwan oo loo wajihi doono doorashada dhici doonta dabeeqada sanadkan iyo horaanta sanadka soo socda ee 2021 hadaba qaab nooce ay loo soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo gali doona deegaanada Somaliland warbixintan waxa inoo faahfaahinaya Ali Ibrahim Maxamed waxa la soo gudbiyay habraac loo marayo soo xulista xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kaasoo galaya deegaanada Somaliland marka la gaaro dabeeqada sanadkan habraaca oo wali qabyo ah lagana yaabo in wax laga bedelo ayaa waxa soo saaray guddiyo isku dhaf ah oo ka kala socda labada gole ee baarlamaanka federaalka kuwaasi oo loo xil saaray inay ka soo tala bixiyaan sharciga doorashooyinka oo markii horeba aan qeexnayn hanaanka loo marayo xulida xubnaha Somaliland ee ku matalaya dawladda federaalka iyagoo qodobo kale waxaana guddigaasi hogaaminayo xildhibaan Ibrahim Isaaq Iriso habraacan ayaa u ekii doorashadii 2016 lagu sheegay in xildhibaankiiba ay soo dooranayaan ergo ka kooban 75 Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo ka mid ah Koongareeska Mareykanka ayaa waxa ay dhaliil u jeedisay booliiska dalkaasi kadib markii magaalada Minneapolis lagu dilay mid ka mid ah dadka madow ayda booliiska ay u adeegsadeen sunta dadka ilmisiisa warbixintan waxa ay noo faahfaahinaya Aadan Abdi Ibrahim Aadan Murtiile Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan oo inta badan gacan ka hela ciidamada dalkan Kenya oo ku sugan
xuduudda labada dal ayaa waxa uu ciidamada uu hogaaminayo Cabdirashiid Janan ay dowladda military ka sameeyeen meel u dhow magaalo xuduudeedka Beled Xaawo iyo Mandheera. Dowladda military ayaa wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in Cabdirashiid Janan uu kaalmo ciidan iyo mid dhaqaalaba uu ka helay dowladda dalkani Kenya. Warbixintan waxa inoo faahfaahinaya waryaheena Cali Ibraahim Maxamed. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa muddo kadib dib ugu soo laabtay xerada Benyole ee ku dhow xuduudda Kenya iyo gobolka Gedo kadib markii safar muddo ugu maqnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalkani Kenya. Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Janan uu la yimid hub iyo lacag isla markaana uu dhaqdhaqaaqo ka bilaabay gobolka Gedo. Ugu yaraan 100 qori oo AK-47 ah, rasaas fara badan iyo mushaar muddo 3 ilaa iyo 2 bil ah ayaa la sheegay in laga soo siiyay Nairobi. Waxa uuna dhaqdhaqaaqa ka wadaa aaga dagaal ee Beled Xaawo. Dad goobjoogayaal in shalay dhowr jeer ay rasaas lagu sheegay in dowladus halka qaar kalena ay sheegeen in ciidankiisa ay sameynayeen. Ayadoo wadanka meelo badan oo kamid ah ay weli gacanta ay ku hayaan xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya ayaa waxa militariga Soomaaliya uu shaaciyay in dalka uu gali doono jawi dagaal. Ayadoo meelaha inta badan lagu xureyn doono ay kamid tahay degmada Bu'aale oo ah xarunta maamulka Jubbaland oo caasimad u tahay. Ayadoo dowladda ay xaaladdan dagaal lagu macneeyay in ay ku raadinayso in ay dib u dhigto doorashada dalka. Faahfaahinta warbixintan waxa inoo eegaysaa waryaheena Ikraan Jaamac Maxamuud. Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helayna saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay damacsan yihiin in dalka ay geliyaan jawi dagaal ka hor doorashooyinka dalka. Duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa la filayaa inuu ka bilowdo ilaa 4 maamul goboleed oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sida ay inoo sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay. Gobolada la filayo in duulaanka ka bilowdo ayaa waxaa kamid ah Shabeellaha hoose, Galgaduud, Shabeellada Dhexe iyo Jubbada Dhexe oo ka kala tirsan dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Saraakiisha militariga ayaa sheegay in qorshaha uu yahay mid la doonayo in Al-Shabaab looga xoreeyo deegaano badan ka hor inta aan madaxda wada jirto waqtigeedu dhammaan. Hase yeeshee mucaaradka ayaa rumaysan in dano kale laga leeyahay. Xildhibaanada mucaaradka qaarkood ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in qorshaha ka dhanka ah Al-Shabaab uu yahay mid la doonayo in doorashada dib loogu dhigo sida beesha caalamka iyo Soomaalida inteeda kaleba looga dhaadhiciyo in dalka ay ku furan yihiin 3 arrin oo kala ah COVID-19 iyo fatahaado iyo jawi dagaal. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii dib loogu dhigi lahaa doorashada Soomaaliya oo ay haatan ka harsan tahay muddo 6 bil oo kaliya. Lamana oga sida ay ugu suurtageli doonto arrintaasi. Si kastaba militariga ayaa ku adkeysanaya in arrintaasi ay tahay mid amni oo aan siyaasad ku lahayn. daawadayaal taasi aan ku soo afmeerinaa warka haweenimo ee telefishinka SBTV oo idin socodsiinayay anigoo ah Cabdirsaaq Kaahiye Miftaax. warkana waxa ay gala qayb qaatay bahda SBTV dhamaantayo isku duuban oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.